بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت وعن داوريال halkan nagala socotaan wadal media iyad wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi aan la yeelan doono hadii ay barnaamij ka noqdo gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal Dr. Cabdullaahi Farweye oo soo maanta barnaamijka ciida martin looga waxaan ku waraysan doonaa hadii ay barnaamij weydiin doonaa gudoomiyaha bal xagga dhanka amaanka iyo ciida iyo sida Puntland hadda ay ku socoto ayaan weydiin doonaa hadii ay barnaamij ka noqdo gudoomiyaha ku soo dhawaada dalmar media iyo ciid maanta maalinta koowaad ciid بسم الله الرحمن الرحيم marka hore dalmamada waa salaamantihiin ummadda islaamka caalamka islaam dhamaantii waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair ilaahayna waxaan uga baryayaa soonkii ay soo soomeen inuu ajarkiisa Ilaahay siiyo cadaabtiina ku Ilaahay ka xoreeyo oo ka dhigo dambi dhaaf ugu sameeyo ciideeda kalena ay ku gaadho Soomaaliya nabad iyo barwaaqo iyo bashbash iyo dawlad Soomaaliyeed oo saldhigata ciidda Soomaaliya dhibaatada ku haysta ugu horeeyaan qoliyahan argagixisada oo nolol diidkaana Ilaahay inuu faraj khayr qabo u furo ciidii hanuun qorayahayna Ilaahay soo hanuunsho ciidii kalena Ilaahay u soo gacan geliyo gacanta ciidamada qalabka sida intaas Ilaahay uga baryayaa waxaan kaloo rabaa inaan waxaan dirnoqno barwaaqada Ilaahay ummadda Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogto ay siisay gaar ahaan hadda Puntland aanu joogno oo runtii asbuuciyo ka hor dadku khatar ku jireen alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay baa mahad leh Soomaalidu hore waxa loo yiri barwaaqo waliba nusqaanteeda leh haddii jiraan xogaa yar oo dadkii dhintay waxaan leenahay Allah u naxariisto dadka ka dhinteenna Ilaahay cawl qowlqaba ugu bedelo adduunyo aakhiraba dadkii xooluhu dhaafeenna Ilaahay waxaan uga baryayaa wax khayr qaba in xoolahooda Ilaahay ugu bedelo sidoo kale goortii wax dhacaan in loo qayliyo hay'ado caalamiya oo leeyahay hadii abaar dhacaan ilaa tolay hadii ay barwaaqo dhaca la qayliyo maahan dhaqan baa Soomaalidu lahaan jirtay wixii dadka wax gaareen waxaa rabaa dadka reer Puntland inay u gurmadaan oo wuxuu la gooyaan waagi hore waxa jiray kaalo wax la yiraahdo qof markuu cayroobo xoolaha la siin jiray hadda abaarta layn lahayd hadii barwaaqo idin daaday walaalihiina xooluhu ay ka dhumeen waxa loo baahan yahay in la isku xilqaamo oo xoolo loo ururiyo oo aynu kulligeen u dhamaano sidoo kale buundooyinka go'ay $1 oo idinku aad u horeysaan oo dalmar media iyo raadiyaashu ay ururiyaan baa waxa lagu sameyn karaa 200 kun oo lagu dhiso wadada lagu dhiso wada waqti qaraxii sooba markuu dhacay 14 Oktoobar qofkii ugu horeeyay biilka jeeday baan ahaa guddiga gobolka Nugaalna waa magacaabay 4 maalmood waxay ku ururiyeen 240 kun Puntland half million baa lacagta la gaarsiiyay 5 maalmood bay ahayd lacagtaas oo dhan waxayna kuma ahaan inagu aan cidna u qeyshay inuu buundooyinka go'ay u gurmano oo idinka meediyaha aad ugu horeysaan dadka oo dhan laga qayb qaato dawladuna ay doorkeeda ay qaato ninba waxa laga sheegay waxaanu waa ku furan maamulka ay ka xun sida aynu isugu dibariidayno marka waxa la ka rabaa abaabul xaq saxaafadeed iyo xaq shacab iyo xaq dawladeed aynu isku filan cidna ayna u baahan alxamdulillah waa ladanahay maanta marka waxaan leeyahay intaasna waa ku darsaday in dawladdu iyo shacabku loo gurmado dadka dhibaataysan dhulka go'ayna aynu samaysano inagu cidna aynaan waxba ka doonin taa intaasaan kala yahay wixii kale way weydiin kartaa marka dawladdu hadda sida uu maamulayso guddiga samaysay wali wadadii waa xiran tahay bal qaabka hadda dawladdu u wajahday maxay kula tahay wallahi laba rool weeye dawladdu badanaa dadkeenu dawladdu waxa laga rabaa iyadu wixii dawladnimo ah inay keento laakiin dadka shacabka oo culimadu u horeyso iyo saxaafadda baa lacagta urunteeda u dheereeya marka dawladdu waa inay magacawdaa guddi shacab ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada oo dad ixtiraam la ku ah dadka dhexdiisa ku ah oo lacag ka keeni kara nin dawladda meel ordayo wasiir iyo xildhibaan lacag u dhiibi maayo laakiin dadka mudanka oo dadka labeentiisa waa inay dawladdu ku shaqaysataa iyaduna waxay ku darsataa magaceeda qaadanaysa mar walba waa saas u samaysaa
puntland hadda maanta waa dowlad cusub ay joogta dowladan cusub hadda puntland dhanka ammaanka kale markaan eegno balqaabka wax wado ku qanacsan wallaahi dowladda horta cusubi waxay u baahan tahay waqti puntland ammaankeeduna meel fiican buu marayaa laakiin colaadaha ku fogan waa kuwa qaan gaaray ma ahan wax 6 bilood iyo 5 bilood iyo sanad iyo waxyaabaha dhibaatada iyo caqabadaha puntland ku ah laga qaban kara maahan waxay u baahan tahay waqti maxaa yeelay 2008 ilaa iyo maanta oo taqriiban 12 sano baa waxaa fadhiya magaaladii ganacsiga dusheeda waxaa fadhiya koox argixisa oo laba kooxood isbahaystay oo dagaal iyo wax u xoog u taagan halka waxaa fadhiya kuwa Soomaaliyeed oo raba dadka inay goostaan oo meel kale la galaan waxa soo dhan waxay u baahan tahay diyaar garow iyo qorshe waxaan filayaa dawladdu in hadda aysan wax badan ka khaldanayn walina de saadaasheedii lama gaarin oo hadeer meel hadda la yiraahdo ammaankii waxbay ka qaban weeyay wali lama gaarin laakiin ishaan ku haynaynaa waxaanu jeclaanahay saxno oo wixii aanu aqoon u leenahay iyo waay aragnimo aanu ku darno laakiin ammaanku markii dawladda laga tago waa mas'uuliyad wadareed oo dadka shacabka saxaafadda qof walba reer Puntland waa u saaran yahay maxaa yeelay haddaan nabad la helin barwaaqadan iyo beeraha kan ma fadhiyaan marka waa mas'uuliyad wadareed dadku rabo in qof walba uu meeshiisa أو كقاطه وحن رجينا إن عدو Puntland كات كان دون إن شاء الله تعالى وأن لين اللودين دون هذا الله إدمه دولتنا وحلا جرى يدا مسؤول كاه أمانك وحي لمن يسيدي الله سو أفشري لها عقباتها هرتاجن تكرر Puntland ومعلوم البريجيد دلية إن يكقيب قاطه أو أي وحول بقى يدو أي جلسه وحكروا الله جرى rabshadaha iyo ciidamada deegaamada iska fadhiya oo ka soo duulay meelaha fogfog aan ognahay oo Hargeysa iyo Gabiley ka yimid dawladdu inuu tabaabshaysto si waddanka kale ka qado musoo saaran weey oo kuwaas Soomaaliland baa la jeedama Soomaaliland ha hadda waxa moodaa xiriir fiican inuu muuqdo oo shalay waxa la soo daayay maxaabiis baa Puntland la siiyay Soomaaliland la siiyay waxa moodaa marka in hadda dagaalkii iyo colaadii lagu bedeli rabo nabad arrintaadu ma arkaa ما أرنتاس إمام مغطى محايا محابيست Puntland iyo Somaliland ما ahan markii ugu horeysay noqonna ma aysan markii ugu dambeysay saan filayo ilaa iyo 2 jeer ama 3 baa la isweydaarsanay hadii wixii lagu diray aan laga heshiin waa aysan qolada jeegaanta iyo Hargeysa ka timi aysan labada gaatama tagin maxaabiistu waa la kala qabsanaya maalin boqol qabanaysa dadkuna waa dhimanaya laakiin waxa muhiim ah inay tagaan meesha ay ka yimaadeen markaas aan nabadu salka dhigan kartaa laakiin hadda rajan nabadeenu ma arkay xabadaan wali dhicin oo sugaysa dhicid baa meesha ka muuqata wax kale oo hadeer ay maxaabiis la kala bedeshay soo krees lama arko kaliya waxaan ku talin lahaa maxaabiis ma loo dhaqmo qolada maxaabiis qabataay si waafaqsan sharciga Geneva محبوس قفك اللي أقصى وين لورد قمو ترى واسعون يصير هذا الميل وكل هذا مو شوكت يربي حميان أنا لقونا الصولي سنة دين منه مركز دان لبضي من ناس دقائق ميل وكل ما ضنا يا تري ميسو مصبح مركز هذا كور وهلا دور شر وهلا كل عليه من Puntland ولا قانونيا وأيسن واحد دقائق همين لكن Puntland أيوه شقين تقول أنتاس محاكلة وري خليفة وهدين هالكابوعة وقوله وبوعة كهشوس كافقين نقول لك قاعدين سلام كويدين إياه مصبيحي تدك يجيبوا هايستا تدك يجيبوا لين إياه ملك يجيبوا هايستا بريم مجيدة يدي يلا بين تيدي وقارن حرية قارن حبة الدعية نبض مركب حيكون مع سام وحنا ورانا والوالبا وحليري وحليري نمر سوق راعي ونم بلا يدرع وهايو وحلي وحلا ورانا يا ويل لبضع عد اسكمه الشيد مركب صدق نم بهايو مدوح ورايا ولا ويل سوس أودلين midna wuxuu oranayaa labada cad kan u dambeeyana wuxuu oranayaa iska heshid markii labadii hore ay soo mareen mid wiil waa la yiri oo kii kale labada cad buya kii kale lag lagu dar marka musabix adeer ma lag lagu dar baan oranaynaa isagoo dhulka yaga dadka yaga haysta ardaasu waa iska riyo ninku markuu adkaado oo meel qabsadana
weligii waa doondoona nabadaan jirin marka wuxuu doondoonaya odagu nabadaan meel la ka shaqeynay buu doondoonaya dagaalkii tukaro ka dhacay sanad ka hor ee Puntland iyo Somaliland u dhaxeeyay khasaaro badan baa laga dhaxay marka in khasaarahaas la baajiyo oo wada hadal loo guda galo oo cidii markaas la yiraahdo war aynu wada hadalno waxa loo diiday هذا الخسارة ماشي كذا عي لا يورتيس موسى بيحمل مسؤول كها يا سوماليلاند maxaa yeelay waxay ka soo duuleen labada gaataba ka soo duuleen ilaa iyo tukan la soo socday wixii marka dhacay ninka soo duulay oo guri awsalahan ku soo duulay oo dad Soomaaliyeed oo maamul u dhisan oo Puntland ku soo duulay oo leentaan goostaan Soomaali kala baxaya su'aalahaas ninkaas u baahan la weydiiyo inuu dhiga baajiyo annagu meel aan ku maadin karno anagu marayn ma inay jirto marka xaqiiqada laga hadlo ma maraynayo si loo kala ururi karo hadda gobolka Sanaag oo kale ciidamo ka tirsanaa Somaliland oo ay ka bixeen oo waxay dhigeen anagu ma qaban karo xilkaas oo iska casilay saddex taliye oo kale gudoomiye iska casilay arintaas ayada maxay kula muuqataa dhanka ciidankana khibrad baad u leedahay runtii waxa weeye marka hore waxaan aad u hambalyeeynaa shacabka Sanaag iyo saraakiisha ciidamada hogaaminayay waxa weeye runta markii la tago qofka haduu garto waxa uu yahay waa mahadsan yahay markii hore wax kasta ha sameeyeen laakiin markii la yiri kaalay hooyada iyo aabaha dil gurigaagiina gub aana ku qabsado bay diideen waa garasho fiican wixii hore waa dhamaadeen oo ay xagga jireen maanta iyo beej cusub waxayna diyaar u yihiin saraakiishaas inay ka qayb qaataan xoreeyta dalka ama buurta ha noqoto ama meelaha kale oo ay Somaliland sida Yubo kale ay fadhiyaan ha noqotee waa ku mahadinayaa maadaama ay u diyaar garoon difaaca dalka waxaan rajaynayaa si Sanaag u tashatay in gobolada kale ay hormuud tahay sool u tahay in loo tashado oo shacabku iyo ciidanba maanta waa maalinteedii baan filayaa inay saasmayn doonaan wararna waa socdaan baan maqlayay marka insha Allah iyadana waxaan ka rajaynaa wax fiican baan ka rajaynaynaa wararku marka Sanaag bay ka socdaan mise sool wararku maxay sameeyeen sool waa ka socdaan waxay marka wararkaas meediyaha wararka ciidamada lagu sheego laakiin wax farxad la ka soo bixi doona hadda la idmo wadanka arada qoore kama dhamaan rag wali ma dhamaan rag wali waa nool yahay marka waa insha Allah rag waa jira aqalna waa jira hadda la idmo dagaalkii waay tukara ka dhacay oo Puntland iyo Somaliland u dhaxeeyay adigu qayb weyn baad ka ahayd haday ahaan lahayd xagga media haday ahaan lahayd xagga dagaalka shalana waxa la kala daayay xaggaas waxa laga soo daayay 14 halkan 3 laga soo daayay wararna waxa sheegayaan in maxaabiis hoose si hoose Puntland u sii deysay arinta wax ma kala socotay waagi maxaabiista wiilal yar yar oo mutawaarun anigu dagaalka door baan kula haddana wali waa ku leeyahay waana kula haan door inta sool ay joogaan sheegaanta joogto warkay waa iska cadiyay anigu qolada maxkamadaha ka baqo heeg iyo waxa iska sheego oo baasaboorada haystana maahay marka taasu warkay waa iska cadiyay way jireen niman dhalinyaro ah oo la qalday oo dadka yaga ah oo la qabtay kadib la qaraacay oo la sii daayay waa jireen haddii kuma wareejin karo nin reer Puntland oo la qalday Somaliland kuma dhibi karno intoodii baanu siinay saddexaas ay haayeen baanu siinay marka tii horena waan ogaaday waa ogaa waagi dagaalku socday adiga waxa lagu magacaabay taliyaha kaydka ciidamada Puntland shaqada wali ma wadan horta waxaan rabaa ciidamada kaydku waxay ahaayeen ciidamadii waagi la soo keenay oo laga soo urushay yeelu ka soo gurmaday bay ahaayeen markii dagaalkii doorashada soo dhex gashay ciidamadii waxaanu ku wareejinay daraawiishta aniguna shaqadii waa ka tagay hadda oday baan ahay reer Puntland oo diyaar u ah difaaca dalka marna aan ka tanaasulayna qadiyada sool iyo Sanaag meeshaan u fadhiyaa hadda la idmo marka shaqadaasna waa ka tagay mar hore aan ka tagay shaqada marka ma intii dawladda cusub baa ka tagtay mise dawladda hore markii doorashada ka tagay December baan ka tagay 14 laakiin ma shaacin hadda cidii madaxweynaha shaqada iska aad warqad u geeyay waaka haddaynu ku laabano gobolka Sanaag marka ciidanku ka soo goostay Somaliland wasiirka gaashaandhigga Somaliland uu hadlay wuxuu yiri ciidamadan kabad baan saaray arinta marka hadii aad fiirisan dadkii siyaasiyiin maxay dala muuqataa waxaan u arkay lima siyaasi ahayn
iskana indhatiraya waaqiciga Soomaaliya ka jira ama Puntland iyo Somaliland dhexdeeda ka jira ama environment-ga uu ku xiran yahay deegaanka uu ku xiran yahay bila ka tirjibay marka waa iska hadlo inay gaar weyn wax weyn ma marka ujeedadu kala hantaan waa aqoon dari waa ka waxa jirtay in dhawaan aadaaday Kismaayo oo muddo aad ku maqnay sidaan xogaa ku hayno halka ma siyaasad baad u aadayso wax kale jira وما زنتها خليف كسماية وحن تجي أفريقيا طبعاً كي بشي أفراد أبريل وحن كنت تجي سفر فاميل بان كنت تجي كسماية وقت أنا ودلني عمار جبلان كاهي هو يلا بتشوكتي هو ينصب بغضي لكن كمان مرنا إنه هذا جبلان وحي قدام بيسلا بعض كوريا اللحية طبعاً كي سفر أنا كنت تجي أول لا لوكاس وقت هنا وده تاريخ بدن بان كسر مري كنتي مسؤولينteedana waan arkay laakiin wax shaqo uma doonan waxaan aad ugu bogay sida ay waalintii ugu dambeysay maanta dawladnimadu sida ay isku bedeshay Kismaayo caasimadii ku meel gaarka ahayd waliba aw cadow badani dul fadhiyo oo dhisantay xaq shicib oo hormaray iyo xaqii dawladda oo hay'adihii dawladda oo dhan oo min bangi إلا هيدا مدح بنان أنتي وزارة هاي وكالة كل أي ديسان يهين وأنا جران كرتاس أقول كاسو صدقي صراحة الله فين تبوها وحنا نقول ريبين أفريقيا طبعا شير وبيت طبعا شبكة على كلا قبصة ما قالوا بيت طبعا على كلا قبصة يواد قريب يسال داوعة جاري رنتي مركز مقالة سوق كبتي أو يمام الدولة صار لجاي بايجا مغضي وحنكروا الله يابي sida magaalada maanka loo sugay magaaladaas oo ahayd Soomaaliya magaalada afraad dad kala duwan oo Soomaaliyeed ay degan yihiin shabaabkuna ay u jiraan 15-20 kilomitir nimanka dadka laynayo waxay ku leenayaan la aqoon magaaladaas 8 saac habeenimo maraysa qof qoristan arki maysid ma hadda waxa iska leh ciidanka Jubbaland ba iska leh mahadaas iyo saraakiisha ka shaqeynaysa amaan ka shaqeynaysay oo runtii shaqada ku filaantay taliyaha qaybta Liam Naasir iyo taliyaha nabad sugidda labada ciidan baa ka shaqeynayay runtii shaqo fiican bay ka qabteen waxayna dabcan ku shaqeynayeen waa booliska Jubbaland waxaan kaloo tagay furintii hore oo Baarsan Guuni oo ciidamada militariga oo Soomaaliya qaybta Jubbaland iyo ay joogaan ciidanka daraawiishta runtii ciidan u baacdii kara shabaab u baacdii kara la diyaariyay hadday qalab noqon lahayd iyo hadday tababar noqon lahayd iyo hadday tiraba noqon lahayd markaan saraakiisha wareystana ciidan xoog loo aanas oran karin maamul goboleed baa laga diyaarinayaa bay ii sheegay walow aan hadda media ka sheegi karin waana muuqanayeen xoogoodu waa ay muuqanayeen marka meel tallaabsatay oo xoog leh oo qaabka ciidanka iska dhistay bay u muuqanaysaa mustaqbal fiican bay ila ekay laakiin anigu qolo xil ka rabta maahay لكن وكم هذين يعدي شغلة قواتهم مدحون هالرئيو محمد جبلان هالرئيو وكم هذين الحين كان مركز دورش على قصص عطاء جبلان مشرحين بلند جوكتا مدحوني هراء مدحوني شوقي سوى مشرح أهمها مركز دورشين كذا سابر سيد محاستي جبلان دورش كذا عيسى كودي دورش أنا والله مقعاوة طبعا سيدي بولا أنا يقعد علي بيقعد عيسى waxaan isleeyahay sida hadda ii muuqanaysay madaxweyne hadda jooga cidi kama xoog roonay sidii iiga muuqanaysay dadku marka shacabka wareysatid waxa lagu leeyahay janabad baanu haysanaa waan ogtahay oo koonfurta Soomaaliya Kismaayo ma ahna magaalo waxa bariya ma jiro koonfurta Soomaaliya oo dhan sawirka waaysa Kismaayo ma magaalo waxa bariya nabad lagu helay oo qofku habeenkii socon kara ma jiro dadka marka waxa haystay mugdi meelaha oo waxa ka soo bixi doona aan la aqoon gacanta lama gali karaan marka odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahaniinta iyo dadka wareysatid waxaan u arkay anigu ama saadaasheed aan ku daro in madaxweynaha hadda jooga uu soo noqon karo chancekiisu 80% uu yahay marka ma cid la tartamaysa ku saadaalisay dadka soo baxay sida loo rabo taageera shacabka iyo sida uu wax uga qabtay meesha uu hadda shaqada ka hayo ودنك أمانك يهرمك سويني ولو أنا وحنا سلايا هاي هذا عيد كلا هين لهاي وحبان بخسارة بكل علها هاي لي
boosaaso 50 kilomitir loo jeeyo lafteena inay ka cadibta habeen kasta qarax taagayah balka war 25 kilomitir meel loo fadhiyo oo gobolka dhan ku xeeran marka cidii ammaanka sugtay أنا waxaan qabaa in abaal marin leedahay waa ma santahay daawadayaal gabadhii barnaamijka ayaan ku guda jirnaa waraysiga waa tahay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa waraysigii gaarka ah oo nala yeelanay gudoomiyihii hore ee gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne gudoomiye waa mahadsantahay